السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa guud ahaan Soomaali qof kasto meel kasta aad joogtiin inaad fiidiyogan share gareysaan oo all Soomaali oo fiidiyogan u gaaro. waxaan rabaa fiidiyogan maanta in aan runta iyo cadaaladda arinta maxaa la dhahay gabadhan Hani ah arinta ay ka hadashay iyo qofka maxkamadda Daahir Calasow ay ka dacweysay oo ay dhahday qofka nolosheeda soo baabi'isay oo Indonesia i keentay ayaan rabaa maanta in aan bartaan uga hadlo sida anigoo qoftaas la xiriiray oo aqoon u leh oo Indonesia aan isla joognay oo waxaan ku dhahay maxaa la dhahay dad maanta oo waxaan ku dhahay si fiican isku yaqaano oo ehelna ah ayaan rabaa markii ehelnimada iyo aqoonta laga soo tago waxa waa qof kasto maalin buu Ilaahay hortiisa istaagayaa oo la weydiinaya wax kasto. aniga warbixintii aan wareystay magaceeda horta waxaa la dhahaa gabadha oo dacwadda lagu soo oogay waxaa la dhahaa maandeeq dacwadii lagu soo oogay oo Hani ay ku soo oogtay oo Daahir Calasow maxkamadeeda ay ka sheegtay in ay soo lugoysay ayaan rabaa in aan ka hadlo. kulay maxaa la dhahay mowduuca part 2 iyo part 1 ayuu noqonayaa macquul ma noqonayso hal video intaas oo dhan inaan uga hadlo. muhiimadda ayaan ka hadlayaa hadeertaan. muhiimadda gabadhaas maxaa la dhahayay aniga ayaa wareystay. maandeeq waa qofta Indonesia keentay sida ay sheegtay Hani. maandeeq hadda ma joogto Indonesia, waxay ku sugan tahay wadanka Canada. hore ayay Indonesia u joogi jirtay, Indonesia ayayna ka baxday. Hani waxay isku barteen ayada iyo maandeeq social media sida Hani ay sheegtay inay social media isku barteen. sida ay social media iskugu barteen rabaa marka inaan maanta aan waxaan ku dhahay aan idin sheego. waxay social media iskugu barteen Hani ayadoo maxaa la dhahayay horay waxay uga soo cawatay Ridwaan page-kiisa. Ridwaan maxaa la dhahay xaruntiisa oo Kenya ayay waxaan ku dhahay la kulantay. xaalad adag laga sheegay kulay aan ma dhageysanin. bartaas ay maxaa la dhahay ka soo cawatay dhibaatadeeda ay Soomaali weyn u soo gudbisay in ay caawiso. kadib maxaa la dhahay lambarkeeda ayaa meeshaas lagu soo qoray. qof allaala qofkii markaas maxaa la dhahay Hani caawin kara si uu caawiyo. maandeeq ayaa markay qisadii Hani dhageysatay qalbiga intuu xanuunay go'aansatay inay caawiso ayada oo Canada joogta. kadib maandeeq markay wacday Hani ay la hadashay waxay caawinaad ay u diri kartana ay u dirtay ayay ku dhahday Haniyey haddaaba Kenya saan ugu rufaadsan tahay oo saan ugu duruufaysan tahay waxaa jirta meel la dhaho Indonesia oo aniga aan ka soo baxay oo laga baxo. walaalay kiiskaadan kiis xanuun badan waaye, kiiskan Indonesia tag isku dhiib waa ka soo baxaysaa waa lagu soo qaadayaa.